تعالى بركاته هبين وناسن مهلو بعد نقل سعطان في حلو والبوت كسوقنتي هلكن نقل سعطان وإس دبليو تي في صومال ودن تي في على بورتا برنامج فلقيته سياسة ده فلقيته الراب بالشدة وبرنامج كينو وحن ديرت صار دونا قلب كذا كيسان لباس قلب جوج عد محل برانكرا قلت جوج عد أرني محل برانكرا وحبا كدعي محا سحيقة جوج عد كذب وحيقة سمعتها جوج عد يعاو كشنتها وحن ربا بل شعبك الصوماليين يضدك انت بدل هلقن كقيبك ايا وحن جعلها ان عاو كبرنو اما يرنيراهدو maxaa gooja cad laga baran karaa ilaa wax walba waxba laga bartaa maxaase laga baran karaa maxaas xiga gooja cad kadib haddii aan falaqan yar u gudubno waad ogeedoon masiiba ka dhacday masiibada dhacday masiibo weyn ayaa ka dhacday gooja cad waana mid aan sugeynay horena aan u sheegay waxaan u maleynayaa bishii February 28keedii haddayba ka horreynba inaan hore u soo bandhigay maxay ku dambeyn doontaa dagaalkan hadda socda waxaan yiri oo ku dambeyn doontaa waxa uu ku dambeyn doona ayada oo wiilasha Soomaaliyeed ay ku baabaan maslaxo iyo aqli odayaasha arkay ay wax ku kala badbaadinayaan malaha maskaxdoodu way gubatay waxay la socdaan ama ay joogan 1980kii waa aragtidayda markaan fiirshay inaan aqli badanana waxa ii cadaatay qiyaasay inay run ka sheegtay wallahi nacab gaar aan ku dhacabaha malaha qof aan gaar u jecelaha ma jirto laakiin waxa jecelaha waxay tahay cadaaladda runta run sheegista warbaahinteenu waa mid ugu run sheegista badan ilaahay baan ku dhaartay aaminsanaha waa oo ana habayaraha wax beerashay sababta qiyaasta iyo aqligaygu wuxuu ku fikirin in wiilasha Soomaaliyeed inay isku baabaan mooyaane aanan wax dambo aan aqli kala qaada oo jiri doonin imaan doonin kana socon dhinaca Soomaali maamulka ismagacaabay way dhacday oo maanta waxaan arkaynaa foolxumadii ka dhacday waliba waxa dhacday Soomaaliya dagaaladii sokoyay intay ka socdeen ama taariikhda anta aan soo joogaanay ama ognahay sidaan dad u jabay wali ma dhicin qabiil u jabay ma ayna dhicin ciidan u jabay ma aysan dhicin ciidan tiradiisu hubkiis intaas leegi ee la qabsaday ma aysan dhicin waa rikoor cusub waxa laga baran karaa waxay tahay in taariikh cusub ay dhigtay maxaa waxa qabiil Soomaaliyeed dagaaladii intaas socday 30 sano iyo wixii ka horreeyay annagana ma soo marin in qabiil Soomaaliyeed hubkiisii maalkiisii iyo ciidankiisii 2 saacadood daagum laga dhigo ayadoo uu ah saldhig ugu weyn oo boqolaal ciidan ay ku sugnaayeen iyo hubkooda iyo saanadooda wali ma ayna dhicin Soomaaliya kama aysan dhicin dagaaladii 77 ayaa xusuusteen dib u raacan waa dagaaladii 77 Soomaaliya Itoobiya ku qaaday casharadii la dhigay umba hadda waxaan aragnay in ciidanka daraawiishta inay dhigeen taasina wax cad waana wax Soomaali ay hadda baratay cashar cusub oo Soomaali la baray tahay waxa ay daraawiishta ama
ciidankii halkaas ka howl galay ee gooja cadda galay ee ka socday maamulka qaatumo state waxaan dhihi lahaa waxa ay dhigeen rikoor cusub waxayna dhigeen buug cusub oo taariikhda soomaaliya lagu qoray oo leeyahay ciidan soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed ama qabiil soomaaliyeed ee gaaraya boqolaal ee hal maalin la qabtay ama saacado yar lagu qabtay weli waa wax noo dhinaa horta halkaas waxaa laga baran karaa in halkaasi jab aana soo weli qabiil dadu ku dhacay ayna jirin inuu ku dhacay jabkaas waxaa keenana ogsoona waa gardarrada waxaa laga baran karaa inaan mar dambe la hawayso doonin ayaa laga baran doonaa daraawiishta aan mar dambe aan la isku dayi doonin waxaan hadda sugaya propagando ciidan baa soo socda waxaa loo dhigay cashar ayna weligood iloobin waxaase idiin sheega caawan iga qora nabad caawa iga qora maamahadan anaa maamada u sameeyey caawa isaaq caloo la degana male cirif la degana malaha isaaq cirif la degana male caloo la degana male cirifna la degana male caloo la degana malaha ilaa aad u iska celi kartaa mooyaane haddaan iska celi karin adeer waxaa waa adeeg ku taallaa habeenka xaloo tegi marka caawa waxaa idiin xaqiijina hubantina ah in cashar lama iloobaan loo dhigay sidii loo hawaystaa dib dambe loogu soo hawaystaan ay adagtaa haddii lasoo hawaystana midkaa mid ka xun ku dhici doono taasa hubantia ka gudbo حق أولي وصاشة شكري ولي وصاشة حق أولي حق حق يبادل بالغو مارت من المذكرة بس هو حاجته وحلوفر حما ضد صومالي إني بابان بس أرمنا عوهنا وحي جوج عد محيتها وعاد عادين بقولال عيدا لقبتي عيدا كاس حقوق السماء الله عيدا كاس وحقوق السماء الله بدو عسكري وعسكري أمر بوكو شقيا midana waa nin sarkaalka ahaa oo dadka deegaankaas degan amarkiisa lagu baabiyey waxaan idin tusaa suurad muuqaalkan aniga muuqaalkan kuma farxin dad badan baa ama arti badan ka qaba laakiin muuqaalkan aniga kuma farxin laba faysal muuqaalka saana muuqaalka aniga kuma farxin maxaa wacay ninkan sarkaalka ahi kuma farxin sidii loo qaabilo وأنا كان كل جلا وأنا مرقاتياش أي أفنتجيسي وقالي نبكى نباتده وجس أي عضهاي وديك وده شيء أنا أقول قللين قبل دتك قدم التري دتك عند التري دتكم عروتو اللاي دتك عروت مرات هواين كلاي مرست كلاي أنا ولد دي جودي أنا أما عرم كودي ولي أوسق وقويين واحد سويدين المرك صور كان هربع هي هذا لكن محمدين وحمدين waxay tahay inuu cadaalad helo waa cadaalad waa nooc maamulka ka jiray ama lagu dhisay ama lagu yagleelay laascaano waa maamul sharciga saxda ka haysta asiga markii loo fiirsho midka Soomaaliland ee goongostka waa dawlad nidaam dawlad oo dhameystiran waa cid uu ka bariya malaha waxa loo baahayaa marka inuu nidaamka dawladnimo muujiyo نظام قبيل وككري وجود نظام دولي أي وجود وحنج على لا مركز نظام الدولي إنه سميه إذا مركزنا محكمة لو داور عيو لكيرا وأجنهي دنبيض أوجلي مقالة دي صار يوتيوب كجران وحياه اسمي أمرض بحثوا كل جرب تاس إياه إفن تيجي سو كفرا الدنيا ذو وحيكون شغال سوى علينا الشرعيات ما أنت هالقاتم مامور جرا قدامك الصومالي مامور كتر سن متكمل أو شرعي سن haddii runta loo noqdahay midka Soomaaliyeedka ee goonogooska ma sharci waxa midka xalaasha xalaalna waxa midka maanta ka jira qaatumo state ka jira ama issi maamulka looga dhawaaqo maamulka soo looga baahay marka waa inay dadkii maanta dhibaatada loo geystay cadaalad helaan yaa dhibaato loo geystay dadka reer laascaano madfac baa lagu garaacay lagu baabiyay hantida lagu baabiyay ninkii jebiye caawa wuxuu ku xiran yahay ama uu joogaa laascaano waxaan u baahanahay in cadaalad la saaro cadaaladdaasuna ay ahaataa mid dunidu dhan ay daawanayso abakaata loo qabtaa madaafiicda wax ku laayay amaabuurta u bixshay saraakiil badan baa la shaqaynaysay amarka la fulinaysay madaafiicda tuuraysay markaa dambiyada lagu soo ogaa
nidaam dooli baan u shaqeynaa maaha nidaam mooryaaneed ay u shaqeeyaan qolaan maarata isha goongooska maaha inaan u shaqeyna maaha marba haddii aan halgankii aan rabnay aan ka jibo keenay dhulkeennii aan xoreynay deegaamadii aan xoreynay dalka intiisa kalena ee howlnaga sugayso waxaa laga rabaa maamulku inuu xalaal yahay waxaa la rabaa in la caddeeyo isla markaasina maxkamadda soo taago saraakiishii dadka madaaficda kula jirtay ayagoo ma aha abaalmarintoodu in canshuurtii laga qaado reer laascaaro wiilkii hooyadii la dilay wiilkeedii madfac lagu dilay inay maanta lacagta canshuurta laga qaaday lagu quudiyo ma aha waxaa ku saarta maxaabiista kale caadiga ee askarta maxaabiista kaloo caadiga askarta waxaa loo baahanya in ay ayagu laftooda noloshooda ayaga laftooda laga shaqaysiiyaa noloshooda ayagu ay daberaan say ku daberi karaan howlo badan baa loo diran karaa asagoo maxbuusa ayaa lagu shaqeynaa maaha laakiin inuu gabadhii oo shalay madfaca ku dilayo canshuur laga qaaday in asiga lagu quudiyo oo meel ii jiif maaha xaq uu leeyahay dhaawac hadduu yahay waa la daaweynaa laakiin nidaamka ma aha dad duulaan ku ah oo horar ku ah dad soomaaliyeed intaas madaafiic ku garaacaya abaalmarin in looga dhigaayo canshuurtooda in lagu siiyo jiif lagu siiyo raashin ma aha wax la aqbali kara maa marka waxaan rabnaa inay cadaalad ahaan u shaqayso kolleyta waa aragtiyeeda dad baa iga aqoon badan laakiin damiirkeygu ima siinaayo wiilka shalay madaaficda laascaano ku baabiinayo inaa hooyada soomaaliyeed ee yaanyada ku gadaysa laascaano adceedda ku gadaysa canshuurta laga qaaday in lagu quudiyo la yidhaahdo igu jiifo xabsiga ugu jiifo waa inuu helo cadaaladda la marsiinana waa waajib dad buu ka dhashay shalay kii ka dhashay oo soo diray oo raalli ka ah waa inuu biilkiisa bixiya hataa maaha sidii la rabo inuu raashin u helo maaha sidii la rabo inuu u helo waxaan arkaya nin le maarata ii sheeg dhar u gadaya maxaa dharka u gadaysaa waa dharka u gadaysaa dharka waxaa kaaga baahan hooyada qaxday ee lascaan banaankiisa taagan ee qadceedda qoraxdu dilayso taasaa kaaga baahan waxaan u baahanahay aniga inuu surwaalkii shaatiga u gashnaa uu ku xiraado waa naxariista aad u gelaysaa maxay tahay aad naxariistu kuu sameeya ma ii sheegi kartaa war aqligu ha shaqeeyo aqligu inuu shaqeeya fiican abaalmarin in looga dhiga ma aha dhar baan u iibinaya maxbuus waay war maxbuus waxaa ah laba dowlo markay dagaalamayaan nidaamka dawliga oo ninkaas ku shaqeynaya laakiin ninkan waxa uu soo weeray dad asiga qabiil lamid oo deegaan la dirisna la ah ayuu weerar ku soo qaaday madaafiic ku soo weeray isaan sin maarta sablaan weli fiir hadda waxaa su'aala laba dowlo waaba dagaalamaanba laakiin aan isweydiinay qabiil kale kusoo duulaya anu waxaan arkaa wax kalama qabiilka kusoo duul waxay tahay jiritaanka dhulbaante in dalka uusan lahayn baa ka dhadhacsanba aqligaas iyo maskaxdaas ayaa ka dhadhacsan waxaan rabaa caaw isweydiin leh walaalo hadduu si dhulbaanta dhulka lahayn xagguu ka yimid ma cirku ka yimid hadduu cirka ka yimid cirka hadduu ka yimid oo bal noo sheego dadka isaaq oo ku fikira dhulka nooga baxo dhulka annagaa iskale dhalahay war dhulka haddaad leedahay dhulbaanta ma cirku ka yimid dhulbaanta cirka buu ka yimid kasoo daatay waxaasaa la rabaa aqliga bini aadamka inuu shaqeeya la rabaa maskax oo macnaha maskax daciif waa waxaas waxaan rabaa marka ani caawa waxa ay dhibaysa bilxaqiiqo ma aha anigana maarata ii sheeg ma aha abaalmarin inaan uga dhigno mukeefka inaan dhex fariisino guryihii madaxda lala dhex fariisiyo la yidhaahdo waa gobnimo dagaalamayna gobnimo dagaal waa la ogolaya laakiin gobnimadu ma aha inaa adiga aad dhiiggaada naan uu raqiis noqdo dhimashadaada aysa qiimo lahaan waxayga waxay tahay caawa gooja cadde waxa laga barteena waxay tahay 10 lama iloobaana oo loo dhigay Soomaali diidka 10 lama iloobaana oo loo dhigay oo u dhigmay ninka darwiishka caawa waxa uu ku qorta meel inaan cid hor istaagi kartaa uuna jirin meesha uu damcaan u gaari karo hadduu caawa hargeysata rabaan caawa hargeystay karo taas waa hubanti ah laakiin dam muusa kale insha Allah bal falaqeynta ayaan dadka shacabka Soomaaliyeed siinayna insha Allah balse waxaan runta ka tacsiinaa dhibaatadii iyo dadka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ee noocyada meelaha ka labada qaybood ka socda dhimashadii dhibka ku dhacay waa ka tacsiinayna dad Soomaaliyeed oo dhintay wax lagu farxamaa balse waxaan jeclaan lahaa bal markaan inaan qadka aan insha Allah bal u yeero dooddeena caawa waa labadaas qodob oo aan leenahay maxaa xiga ii sheeg yana insha Allah maxaa xiga maxaas laga barto gooja cad halo assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد habeen wanaagsan habeenada waa safar ku maqnaa waa maqnayn caawa waa falaqeynteeni caawa gooja cadda waxa laga bartay ayaan u baahanaa inaan insha Allah aragtidaada ka dhiibato waxase gooja cadda xiga shaqada xigtaa waxay ahayd shaqooyinkii markii madaxweynaha la doortay aan uga manay kamid ahayd in gooja cadda la soo afjaro
shaqada kale caaw aan direyna daraawiishta waxaan ka rabaa bal inaan isla qaybsano insha allah waxaas laga barta silgooja cadda maxay tahay ma geli karaa haa waa geli kartaa oo ku banaaya horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed waa salaamahaya dhammaantood meelay joogaanba intii soomaalinimada diidana waa who cares waxaan oran lahaa marka horta warkii oo dhan adaa iga dhameeyo waabaad cantuugaad ku boobta ma garata si saxa waxa kuu muuqdaana ii muuqda kulley aniga aad baan isugu ra'yi dhowna laakiin weli hoomooggii aan u diri lahayn baan hadda ka shaqaynaynaa waxaa horta meesha ku jira ragga la qabtay waa gacan ku dhiiglayaal fikradda iyo dilidda iyo ku tagrifalka iyo dhaarta oo idaacadaha lala soo istaaga ragga samaynaya horta xabsi inay galaan bay ahay meel gaara oon midna midka kale la hadlin midba been lagu xiro oo haddii xabsiyo waaweyn aysan meeshu lahayn kolley xabsiyo waa leedahay oo masajuudaan iyo siilaanyo iyo waa u samaysteen xabsiyo dhulbaantaa lagu xirxiro laguna bahdilo xabsiyo meeshu waa leedahay dadka kale oo waxyaabaha yaryarkaa u xirxiran inta la cafiyo tuugada iyo xoogaa dhirbaaxada iyo dadka xoolo yaroo la dhacay iyo guryo la isku haystiya dadka u xidhan gebigoodaba waa fasixi laha maxkamad u imaadaan dhihi lahaa raggaan in lagu xirxiro oo lagu bedelo meeshay ahay waxaan taasu leeyahay dhallinyaro waxaa jirta brain wash lagu sameeyey sida al-shabaabku brain wash ugu sameeyaan ilmaha oo laga dhaadhiciyo dhulka adinka iskale oo taariikhdii soomaaliya tii sayidkii tii sayid cabdillah xasan tii wiilwaal tii axmed gurey tii intii gaal lala dirayo waddanka timid bortuqiis iyo griig iyo talyaani iyo ingiriis iyo adigu wixii shaydaan yimid turki bay xataa yimid oo 100 sano iyo xoogaa ka hor yimid kulligeen innagay noo socdeen dadkaas waana lala darira ciyaalka looma dhigin waxaa loo dhigaa lixile iyo haragwaafi iyo koodbuur iyo waa raggii galay Itoobiya oo amxaarada la soo saftay oo qarankii Soomaaliya wax ka burburiyay صح ba iskuulada lagu dhigaa cunuga marka koodbuur wax lagu baro koodbuur inaan caayaya ma aha waa qof dhintay Allah u naxariisto dambigiisana waa la laabo isaga hawshiisa Ilaahay bay hortaan laakiin waxaan rabaa exactly inaan sheego waxa meesha ka jira it is what it is ma fahmaysaa cunuga marka koodbuur loo dhigay for example markaan kaaga soo qaato laguna yiri afweyna ku dilay afweyna iskuulka u dhigay afweyna maxamed siyaad barre ka wadan oo iskuul lacag la'aan siiyay oo jaamacad lacag la'aan siiyay oo caafimaad lacag la'aan siiyay oo biyo iyo koronto lacag la'aan siiyay oo cadawga ka hor taagan oo qof walba October marayo raaxa ku nool yihiin bas siyaad barre xukunkiisa la baabaash raggii baabiyay Muuse Juudaan baa kamid ah raggaas hadda iskuulada lagu dhigay ayaa kamid ah Muuse Juudaan wuxuu kaga dawana waa tuug waa tiif wuxuu abaaray agoomaha guryahoodii iyo beerihii taas waa taariikhda aabay waxaan jeclaada caawda ii taabato maxaa laga baran karaa maxaa sixiga goojacad waa hushiisa soo afjarantay waxay gool iska rabaa maxay tahay maxay kula muuqataa maxaabiistan maaragtay dambiilayaasha gacan ku dhiglayaasha ilaa abaal marnaa waxaa la iska rabaa markaan hoos u soo noqdo waxa ila tagay ilmaha yar yarkaan u soo socday oo brain washka lagu sameeyay iyaga xabsi gaar ah in lagu xiro lana dhaqaaleeyo brain washna lagu sameeyay inay Soomaali yihiin la baro Soomaaliyana inay hal tahay la baro ragga waaweyn hal nin in lala xiro ma barabo oo u raaxaysto sheekaysto waa in stress inta ku dhaco dhistaro ku dhufta oo lagu yabcan saa u qalasha ma garata maxkamadna waa in loo diyaariyo caalamka ka timid haddaan dawlad leenahay maanta oo aan xasan dhiiqa joogin maxkamadda muqdisho la geyn lahaa waayo genocide bay geysteen maamulka ka jira sooli sanaag maamulka ka jira maamulada Soomaaliya la mid yahay cid walba dambi geystan maxkamadda leeyihiin maxaa maxkamadda ay leeyihiin in maxkamadda nidaamka maxkamadda garsoorka in la istaajiyo hawshii uu lahaana loo igmad marba haddii shaqadiisa timi soo wax loo baahan ma marba haddii maamulada kale uu la mid yahay maxaa u diiday inuu asaga isha garsoorkiisa uu istaajiyo maxaa waa dadka reer lascaan waa dad aqoon-yahana waa dad diyaarin kara kama liitaan hal qabiil iyo laba qabiila galmudug degan ama qabiil iyo barkiisa degan maxaa kalif waa in maaragtay isha ay samaysan waayaan marka iyagu u diiday haddaan taas ku raaco
استيت عرضنا وهذا اللي يقللي أو سوى نكسرنا كل اسمي صح في فعل حلال ولي سي حلال سي حلال كل ولي هذا حلال كل اسمي ها absolutely ها dadkii masquulaha ku jiro iyagoo soo kaacay kursigoodii la boobaya ma qof walba halka isagoo fadhiyo qaxwiisa cabaayuu doorashada gala صح fiqishin iyo gabooya ugu dad yar oo ayagu waxay dhaheen in la doorto ma kursina loo tuuro nala siiyo ma rabno doorashada wax ka galeen goobnimadaas wax la soo koobi karaba ma aha صح ma garata iga hadaa saas ay inta maxkamad ay dhisanayaan maxkamad hoose mid sare ee looyarada inta la siyaarnayo nimanka xabsiina ku uraan weey waa in shamuuray cunaan galay qamadi shamuuray oo salid caday lagu daray waa inay cunaan نعم hooyada Soomaaliyeed ee shalay madfaca wiilasheeda lagu dilay lagu laayay ee maanta laga yaab in roodi dariiqa ku iibiso canshuurta laga qaaday in lagu siiyo raashin fiican lagu siiyo loogu gado waa wax qolo qurxona taas ay sawirkaas ay wata war qurux ma dhigay waa muraad dilaac baan ku leeyahay muraad dilaac waa muraad dilaac muraad dilaac weeye ma fahantay waxaan rabaa Axmedow dadka kale aan uga baxayaa abtiyaashay maanta si sharaf leh haday ka rabaan ummadii Soomaaliyeed ka koona waa difaacaysaa wax alla waxa adduunka caalamka waxa ummadda Soomaaliyeed tusayna waa incredible wax mucjiso ah way gaaladii baa yaaban sida loo si bood garaynayo waa saxlak okay anu soo gudul mid kale maxaa laga baran karaa waxa laga baran karo Soomaaliya awood iyo xuduud ay leeyihiin oo aan marnaba cid barba dhici karta in jirin 10 lama ilooban ay qoreen oo aan dadka Soomaaliyeed dhan qabiil qoro uusan jirin Soomaa horta waxa laga baran karaa Axmedow horta Ilaahay baa u hiiliyay صح ummadii Soomaaliyeedna waa u hiilisa صح Ilaahay wuxuu ugu hiiliyay dambi iyo dunuub baa laga gala dambi iyo dunuub Ilaahay acdana dunuub cinda Allah Ilaahay soo koobi karo gacantiisana ay ku jirtaa laga gala wax garadkii baa laga dilo sheekhi baa laga dilo ardaygii baa laga dilo kii hadli karay baa laga dilo indheed garadkii baa laga dilay waa reerka saa loo halkalamsaday aayar daangal dubay laga dhigtay oo inta la meehay inta qorahad laga cantuugayay waxaan leenahay waxaa laga baran karaa Ilaahay awoodiisa horta waa laga baran karaa Casiiso Raxmaanka waxaa laga baran karaa ummad israacday guushay soo hoysana waa laga baran karaa naam oo wax nacamti NCC iyo harti waqooyi waa digiraya laakiin Soomaali u kala hartay oo damiir ku jira ma jirin صح af iyo adinba horta awood israacday waxa la dhul tararay rag waa toli karaa taaka labadeed taakadii baa la tolaan ku leeyahay maanta oo laga tolay bridge-kii Soomaaliya isku xirayay iyo araxdii Soomaaliya maanta Soomaaliya calankii buluuga habaana ka taagan burcad korkeeda inta kale waa la gaarsiinaya insha Allah Raxmaan dhankan waxaan arkaynaa hadallo oo inta badan aad arkayso iska cadiifado waa weerarina waxba sameynaa soo weerarkiisa waxaan u baahanahay ma oo inuu soo weerar qaado waxa aynu anigu ku qanimaysanayno oo lafteeda dad noo asoo ma haba Allahu akbar waxaan ku yiri nima laga warbu adduunyada reexamar nin reexamar aan maqli jiray oo naagtiisu tirafilayo iyo dharkiya kala baxay markaas aniga luuqaas maray reer wardhiigle ma isla halkaas ay shakadu ka timid aniga luuqaas maray waa la joojiyay buu yiri shaatiga siibaas la yiri waa siibay la kasto ilaa kastumada la socdeen bi haday dhiilaayeen kastumada si ma taqaantaa waxaan ku sameyn lahayn dharka kale waa laga qaaday cirkaan ka soo dhiciha marka waa taas si fiican ku fahmi aad ya sanu abakay ma illa ma sha Allah aad ya ka ma marka fariinta aad diraysaa waxay tahay kastumadi السلام عليكم الله يعز ما شاء الله كستومدي بقى ورتي كستومدي السلام عليكم والله حبان وريبن انت الله يعز ما اسنتها انت اسمعوا كدر يا احمد وهالكلمه ايه waxaan u sheegayaa isaaq waa dad Soomaaliya waana dad marinkii ka halaabay wuxuu yiri jacayl marinkii baabay jacayl magci baabay marinkiina ka habow horta reerkaas marinkii bil aadanimada human being uu ka halaa ragii shala qarankii Soomaaliya burburiyay baan haleeyay waxa haleeyay Umar Arti Qaali markuu ciidamada Soomaaliya xaafadaha ku kala biireen hawiyana isugu diray Caydiid iyo Cali Mahdi horta reerkaas koofur iyo bari gacantay mariyeen markay isku direen qaraxyay noo soo direen horta uqubadayadii baa ka soo baxday haddaan koofur degniyo haddaan bari degnaba waxaan leenahay walaalayaal isdaba qabto
haddaynan istaba qaban hadalka waa soo koobay haddaynan istaba qaban soomaali waa daawanaysaa daarood iyo adinkuna barqadi baad helaysaa hadalku intaa wey wallaahi baan looga gabareen wallaahi ka geela jira iyo ka tuulada jooga isku mar baan dabagaabka loo gashanaya ha diyaar garoobeen waxaan ayay la haray salaamu calaykum way maqlaysaa axmed hello
waxaan rajeynaa naga raala hada waxay rahood aan ku kala maqneen waxaan rajeynaa in barnaamijka halkeen noogu socon doono halkiina uu noogu socon doono anagoo qadka u fasaxayna insha allah adigoo ka raaliya inteenu aan hawada ku kala maqnayn halkaad nagala socotaan waa warbaahinta SWTV Soomaali Waddan TV oo la barata barnaamijyada falaqeynta siyaasadda iyo falaqeynta arrimaha bulshada caawa miiska waxaa noo saaran waxay tahay gooja cadde maxaa laga baran karaa maxaase gooja cadde laga baran karaa maxaase xiga tan waxaan rabaa marka insha allah barnaamijkaas halo salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله ها أحمد والزهر هولن نسيتها magacaada halkee joogto adigoo mahadsan korna u hadal زهر هولن واي saar haye barnaamijka la socota caawa وعلى الصعودة ولا البرنامج جوجة عد haye saar caawa waxaan kaa rabaa gooja cadde maxaa laga baran karaa kow ta labaadna waxaan kaa rabaa inaad noo sheegto waxa xiga gooja cadde ilaa waa waxyaabay aan ka codsanay ee madaxweynaha maamulka maaragtay ii sheeg qaatumo waa uu hagaajiyey gooja cadde waa laga saaray cadowgii madaafiicda magaalada laga joogi waayo waxaan rabaa marka waxa laga baran karo iyo waxa xiga adoo mahadsan fiiri gooja cad waxaa laga baran karaa xaqa iyo xaqdarada in la kala guuleysan karo kow baraaw inuu xaq iyo xaqdaro xaq ku guulaysan karo kow waxa wanaagsan maxaa kaloo laga baran karaa mideeda labaad waxa meeshaas waxa waaye in dawlad la leeyahay 35 sano ay ahayd dawlad oo intaasoo hub iyo intaasoo adduunyo iyo intaasoo qarash lagu soo dabagalay in hal maalin lagu bixiyo saacado lagu bixiyo adduunkana waa la yaabay